intaa ka bacdi buuggan toosu dhexgeli doona insha allah. buuggan mugdiga nolosha la yidhaahdaa waa dhiganahayga afraadan qoro. ugu horeyn magacaygu waa maxamed saalax maare, waxaan ku dhashay gobolka Sanaag. halkaasaan waxbarashadeedii hoose dhexe kusoo qaatay, laakiin muddo hadda 7 sano ilaa 6 sano gaaraysa waxaan ku noolahay gobolka Awdal magaalada Boorame. buuggan waa buuggaygii afraad. ugu horeyn dhiganahan wuxuu ka kooban yahay 120 page. markaad coverkiisa ama jildigiisa sare aad eegto waa madow, haddaad u sii fiirsato il baa ku sawiran. isha lafteeda haddaad haddana sii fiirsato ilmaa ka dareeraysa. buugga intiisa kalena waa madow. magacaan u bixiyeyna waa mugdiga nolosha. su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay mugdiga nolosha muxuu ka hadlaya? dadka inta badan waxay weydiin jireen ma jacayl baa iyo waxyaaba noocaasa. may jacaylka maan qorin. buugga wuxuu ka hadlayaa 2 ujeedo oo Soomaalidu aad uga hadasho, laakiin wuxuu uga hadlayaa si ka duwan sidii aynu u baranay in looga hadlo. wuxuu ka hadlayaa ugu horeyn hooyada danyarta ah ee danayada waqtigu haysto iyo inanka qaangaarka ama gabadha ka shaantida ah ee doorbida inay tahriibaan. faraqa noocaasa ee u dhaxeeya labada qof ayuu ka hadlayaa. hooyada aan haysan lacag ay ninkan ay magafaha u bixinay kaga saarto wiilkeeda. badankooda qisooyinka 7 qiso ku qoran buugga. 7 qiso dhammaantood waa kuwo si dhab u dhacay oo dhammaan gobollada dalka ka dhacay. waa hooyooyin danyar ah oo u badan hooyooyinkan suuqa fadhiista ee xawaashka iibiya iyo carruurtoodii oo tahriibay oo qaarkood u dhinteen, qaarkoodna iyaga laftoodii ay dhinteen. 7 qiso aan waddanka ka soo ururiyay ayaa ku qoran. buuggu waxaan ku qabanay 4 bandhig baan u qabanay. ugu horeyn bandhigiisii ugu horreeyay wuxuu ka dhacay Garowe bishii 3aad 7deedii, bishii 4aad 10keedii Boosaaso ka dhacay, bishii 5aad 22keedii wuxuu ka dhacay Boorame Somaliland, bishii 6aad 27keediina Cergaabo. wuxuuna si u helay inuu ka qayb galo 2 book fair oo ah book fairkii Garowe iyo book fairkan maanta halka u fadhino Hargeysa International Book Fair. ujeedada guud ee buugga horta waa intaa. maxamed waxaad sheegtay in buugga ay qisooyin dhaba ay ku qoran yihiin 7 qiso oo dhammaantood ah xaqiiqo dhacday. qisooyinkaasu dadkii ay ku dhaceen waa ogolaansho ma ka heshay markii aad intaanad qorin? wallaahi xeerka ugu horeyso aad maraysaa ayay taasi tahay. markaad wax qorayso, markaad qof qiso ka qorayso, waa inaad marka ugu horeyso weydiisaa qofkan inuu raali ka yahay in bulshada loo soo bandhigo. haddii uu taa kaa ogolaan waayo waa inaad weydiisaa inaad magaciisa qarin karto, laakiin ujeedada uun aad la wadaagi karto. marka way jiraan hooyooyin iyo ogolaan waaye xataa inay iga sheekeeyaan dhibaatada carruurtooda ku dhacday iyo dhibaatada iyaga qabsatay. wayna jiraan waalid iyo ogolaan waaye inaan magacyadooda sheego, laakiin badankoodu waxay u badnaayeen hooyooyin fahansan waaqica taagan iyo sida ay dhalinyaradu ay runtii ugu baahan tahay in laga soo maro dhanka hooyadood oo dhanka waalidka wax loogu sheego. marka waxay u badan yihiin kuwa lay ogolaada inaan idiin soo bandhigo. kuwii aan lay ogolaana magacyada uun baan bedelay iyo magaalooyinka halkay yihiin, laakiin dhammaantood waa qisooyin dhaba oo si dhaba u dhacay. maxaa kugu kalifaad inaad mawduuca gaarka doorato wax ka qorto? qofka qoraagi ihi marka uu doonayo inuu wax qoro waxa ugu muhiimsan wuxuu wax ka qorayo. ujeedda sidee aad wax ka qortaa, sidaad wax u qortaa, sidaad bulshada wax u fahansiisaa, markaasaa loo imaadaa sidaad buugga waxaad ku qori lahayd. muddo 6 bilood aan raadinayay ujeeddo cusub oo runtii bulshadana faa'iido u leh, anigana ilaahay dhankiisa insha Allah abaal ilaahay iga siiyo. hooyadu qalbigayga way ku jirtay. tahriibtana inta badan dhalinyarada waan kala hadlaa, laakiin waxaan raadinayay inaan dhalinyarada ugu tilmaamo qaab ka duwan sidii hore ay u barteen siyaasiyiinteenna, culimadeenna, aqoon-yahaniinta, dadka waxgaradka qoraayada kulli. sheekadoodu waxay ku soo gaabsantay tahriibtu way dhib badan tahay. dumarka waa la kufsadaa, ragga waa la adoonsadaa, si waxa lagu qabtaa koronto, waxyaabo noocaas ay ku soo biyo shubatay. marka waxaan arkay dhalinyarada inaan waxba ku qaadanayn ujeedada noocaasa. marka waxaan yara doorbiday inaan balqaab sidii hore ka duwan aan ugu sheego. buuggan bil gudaheedu wuxuu ku gaaray magaalooyin ay gaaraya ilaa 12 magaalo
waxaa ka mid ah laascaanood, nairobi, hargeysa, gaalkacyo, baydhabo, boorama, muqdisho, uganda, dubay, garowe iyo boosaaso ayuu hal bil gudaheed ku gaadhay. marka taasun baa igu kaliftay inaan ujeedada noocaas ka qoro. intii imaka buuggu uu soo baxay ee aad daabacday ma jiraa wax falcelis ahoo kaaga yimi? wallaahi barta horta aan facebooka ku leeyahay baan inta badan waxaa igu soo noqda aan kaga sheekeeyaa, oo waxaan soo dhigay dhowr qof ilaa 10 iyo ilaa 5 gaadhaya oo ii sheegay in buuggan dartood ay tahriibta uga joogeen, in buuggan markii ay maqleen oo ay akhristeen qisooyinka ku qoran iyo dhibaatooyinka hooyada ku dhacay ay iyagu doorbideen inay hooyadoodu naxariistaan oo ay waddanka joogaan. barta facebook aan ku leeyahay sawiradooda intaan soo screenshot geliyey ayaan ku soo diray. marka way jireen waxyaabo badan oo igu soo noqday, dhiirigelin iyo hambalyaha u badnaadeen. waad mahadsantahay maxamed. waxaan jecelahay maadaama sidaan idhi ay badan yihiin qorayaashu waktigeeduna si xidhiidh u yahay in aan isku dayo bal in aan ciddii doonaysa inay wax su-aasho maxamed fursad gaaban oo 3 daqiiqa siiyo in ay wax weydiiyaan. inoo soo gaabiya su-aalaha kuna naqsada koona. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Jamal Ibrahim, waxaan ka mid ahay ardayda dugsiyada sare ee Somaliland, waliba kuwa caasimada. maxamed waxaan ku weydiinayaa, waxaad tiri buuggani wuxuu kaga duwan yahay buugaagtii kale in waxyaabo kale. buugaagta in badan taariikhka waa laga qoray, laakiinse maxaynu oran karaynaa kaagu uu kaga duwan yahay kuwa kale? laakiinse maxaad sabab uga dhigaysaa bal inuu kuwaasi uga duwan yahay? dee kolley kaasina ay taariib unbuu ka sheekeynaya, wuxuu ka sheekeynayaa inaan taariibay oo hargeysa ka baxay oo halkaa maray iyo halkaa maray. taagna bal markaa muxuu kaga duwan yahay oo bal uu yani uu kaa hore kaga duwan yahay? adoo mahadsan walaal. saddex su-aalood baynu israacinaynaa. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مقعي عبد الغني محمود شال كسو محمد هاي كعتمي حقا يا برعو aad baan ugu faraxsan horta maxamed saalax maarro inuu goobjoog ahaado bandhiga buuggaaga mugdiga nolosha aanu in badan kala socdayeen social media iyo meelaha kala bulshada ku kulanto. su-aashan ku weydiinaya waxaa weeye maxamed saalax maarro bulshada inta ugu faraha badani ma aha bulsho akhrista ah. waanu jeclayna bulshadu in wada akhrista noqoto ama ay wada qoraan noqoto. waxaa jirta bulsho akhrista ah laakiin aan aqoonin sida akhriska looga falceliyo ama akhriska maxaan dhahay loo fahmo. bulshada marka laga yimaado iyadu akhriska garanaysa laakiin aan fahmahaynin, sidaan u fahansiin karaynaa kii reer miyigaha ama jaahilka ahaa ee nagaga yimi maxaan dhahay baadiya markuu bartan yimi waxba ka fahmi waayey, maqlay ficilka iyo maxaan dhahay halahalaynta ay ku hayso maxaan dhahay tahriibtu ama maxaan dhahay ajiradu dalkeennan weliba dadka bilaa aqoonta. sidaan iyaga u fahansiin karaynaa ama uga dhaadhicin karaynaa waxaa weeye micnaha ku dugan buuggan mugdiga nolosha. su-aal saddexaad baynu qaadanaynaa, dabeedna waynu uu ka jawaabayaa qoraagu. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa yaala xasan salebaan ka mid ah naadiga akhriska qoraalka halkaraan ee magaalada burco. su-aashaan ku weydiinaya maxamed saalax maarrow waxay tahay dareen intee leeg bay kugu qaadanaysay markaad qoraysay buuggan, weliba aad sheegtay inaad sheekooyin xaqiiqa aad soo waariday wakhtiga aad ku guda jirtay, waxaad dareemaysaa adigu si sababta aad buuggan u gaadhsi weyday magaalada burco ama aad hareeraha ka dhaadhaafisay oo maxay taani ku weydiinayna? asalaamu calaykum. way uu qoraaga ka jawaabaya. waxaan filayaa su-aasha qaybteedii dambe waa kaftankii burco, marka iyada su-aal loo qaadan maayo. su-aasha koowaad waxay ahayd bugaagta kale ee tahriibta ah. waxaan filayaa maxamed muu odhan bugaagta tahriibka ka duwan yahay, laakiin bugaagta guud ahaan mawduuc ka duwan buu qaatay. markaa maxamed su-aasha koowaad waxay ahayd tahriibta bugaagta kale muxuu kaga duwan yahay. su-aasha labaadna waxay ahayd akhristayaasha aan waxba akhriyin sida loo gaarsiinayo
iyo taa su-aashaa u dambaysay oo ah shucuurtaadu cayn ka yahay waayahay waan soo koobi doonaa su-aalaha jawaabahooda. walaalkay wuxuu i weydiiyey maxay buugta kale kaga duwan yahay buugga mugdiga noloshu. waan sheegnay oo waxaynu ka daalnay taariibtu way dhib badan tahay, ereygaa erey dhaafsiisan waynu arki weynay. dhibaatada ugu weyn ee tahriibtu ay ku dhacdaana waa hooyada. weli aanay saamayn tahriibtuna ma jiro. waxaan doorbiday iyagoo hooyooyinku kala jeeb fiican yihiin oo marka wiilkeeda la yidhaahdo ninkii xumaa ee liibiyaankiibaa haysta, anigu magafe uguma yeedho laakiin idinkaa ugu yeedha, ilaahay baan wax gafin. ninkii xumaa ee liibiyaankiibaa haysta marka la yidhaahdo hooyana waa hooyo wax haysato markaaba bixinaysa. hooyana waa hooyo dhibaato kale usii noqonaysa inuu inankeedii ka maqan yahay, haddana lacagtii aanay hayn ay kaga bixin lahayd wiilkeega waa inankaa ku samata bixin lahayd aanay hayn. waa dareen ka duwan oo ka xanuun badan kan kale hooyada wax haysata. markaa buggan wuxuu kaga duwan yahay, wuxuu ka sheekeynayaa keliya dhibta hooyada danyarta ah ee xawaashka iibisa, ee aan shaqaysan, ee aan helin quuto daruuri ku filan, ee ama xataa odageedu dhintay ama ay kala tageen wakhti hore, iyada oo wakhti ku bixisay wiilkeeda ama gabadheeda sidii ay u soo saari lahayd uu meel uga soo muuqan lahaa. iyo inankaa dhallinyarada intuu waxyaabo kale isu sawiray tegay, farqiga noocaas ee u dhexeeya ayuu kaga duwan yahay buugta kale. su-aasha kale walaalkii weydiiyey wuxuu ahaa sidii wuxuu fahansiin karnaa dhallinyarada aan wax akhrisan. dadku iminka social media wada isticmaalaan. soomaalidu iminka waxaad moodaa 95% in waxyaabaha facebooka isticmaalaan. olole aada u fara badan baan ka bilaabay biijka aan facebooka ku leeyahay maalintii aan soo bandhigay. waan jeclaa inaan magaalooyin badan gaadhsiiyo oo aan buugga geeyo, laakiin nin arday ah oo isagu jaamacaddiisii ku jiro wax baranaya ma awoodi karayo inuu soomaali meelay joogto wada gaadhsiiyo. laakiin waxaan doorbidaya qof kasta oo isoo weydiiya inaan anigu intaan gaadhi u saaro aan idhaahdo walaal ciddii kalead heli karaysana fariinta noocana gaadhsii. sidaasaa ugu fudud baan u malaynaya oo lagu gaadhsiin karaa. qaarkood anaa u sharaxayay sababto inuu buug akhristo waxa ugu qurux badan inaad adigu u sheegto. anaa usoo yaro koobayo lahaa dhibaatada noocaasa ta noocaasi ta noocaasa, bal waxa farqa u dhexeeya eeg. su-aashii ugu dambeysay walaalkeen ina weydiiyo xasuusi. dareenkaagu siduu ahaa markii aad qoraysay? dareenkaagu siduu ahaa nin hooyo danyara wax ka qoraya, hooyo iyada lafteedii ooyeysa marka wax laga qorayo. dareen wiilkeedii ama weydey ama ilaa iminka aan arag oo u hanuunsiyeysa ama u hamuun qabtaa inay hal maalin uu wiilkeeda aragto. hooyo wiilkeedii dhibaato badan u martay, hooyo wiilkeedii baryo badan iyo baahi badan uu darteed u saameeyey. marka aad waraysanayso oo qaarkood kugu ilmeeyaan oo qaarkood emotional ama si dareenla kugu sheekeeyaan, wuu isbedelayaa dareenkaagu. hooyaa ku dhashay, hooyaa ina dhashay, hooyaa ina barbaarisay. marka hooya kuu sheegayso hooyadan iyo hooyada waxba kuma kala duwanaa. markaa dareenkaa markasta qaarkood markaan wareysanayo wallaahi qisooyinka qaar ma dhammaystirna, iyadoo ii sheekaynaysa qaarkood ayaa wadnuhu dhacay. markaasii tiri halkaa iiga jooji, waan awoodi kari waaye ilmo darteed inaan su-aal kale hooyadaa weydiiyo. markaa dareenkaas waa dareen noocaasa. maxamed aad iyo aad buu u mahadsan yahay. wuxuu door biday waktigu wuu ka dhammaaday, laakiin fursadda waan aqbalayaa in uu maanse yar ku xidho qaybtiisa. waan jeclaa maanta dhan inaynu buugga mugdiga nolosha ka sheekaysano, laakiin walaalahaybaa iga dambeeya. waan soo koobayaa maanse waxaan soo koobayaa la yidhaahdo kusoo ogonaanidayaa. waxaa la yidhaahdaa xabsi tahriib. maansadan anigaa sameeyey 2015 ayaan sameeyey. qiso wiil saaxiibkay ee ku dhacday baan ka sameeyey. waa wiil tahriibay, hooyadii danyar ahayd. qisadan waxay ku jirtaa buugga hordhiciisaan kaga sheekeynayaa. gogoldhigiisaan kaga sheekeynayaa. maansadan xabsi tahriib baa la yidhaahdaa. waxay ka sheekeynaysaa hooyo danyara oo iyadu shakhsiyadeedii hadlaysa, oo iyadu shakhsiyadeedii leh oo wiilkaygii oo halkaasaad iga taagnayd, lacag ma hayo, xoolo aan maanta kugu furto ma hayo, ma awoodo inaan halkaad joogto kuugu imaado, maxaa sameeyaa, sidaan yeelaa, awooddaydu ma dhaafsiisna
xabuub baan iibiyo iyo xawaash yar oo aan wareejiyo waa hooyadii oo toos u hadlaysa walaalahii wakhtiga ka cuni maayo waxay tiri xumaa dhunyaal xumaa waayuhu xagal gaabanaa dhunyaal ereyga dhunyaal tahriib ereygeenu inta badan samaysanay waa erey carabi ah laakiin soomaaligeenna saxda ah dhunyaal baa la yidhaahdaa ereyga tahriibta siday ii sheegeen abwaaniin hore waxay tiri xumaa dhunyaal xumaa rala xumaa dhunyaal xumaa waayuhu xagal gaabanaa harfaha sannaduhu yaraa xilkiisa qofaad sidood xumaanta ka dhowr lahayd xajiinta ka waab lahayd markuu ku xiqdiyo xumaa xaqay hooyadu lahayd xisaabtay kaa mudnayd qofaan garanayn xumaa markuu curadkii xunnaa xumayn jirtay eed jeclayd tahriibta xigsado xumaa xabuubaan iibiyaa hawaashkana waan gadaa cadceeddaan xiiqayaa xabeebe afkii dartaa xubnihii socod way gabeen xabsay ku jirtaa naftani haddana xilkii hooyanimo xasanu weli waan sidaa magafe adiga igu xidhay xabsiga adiga i dhex dhigay xabadda adiga igu ganay hurdada adiga iga xaday adaa fikirii xidxidhay xalaal baan kuu dhalay xumiga wiilkaygiiow ma hayo xoolo iyo lacag ma hayo xoolo iyo lacag xamaal ma aqaan anigu xabaasha haddaad gashana xaq weeyaan geeriduye miyaan kuu soo xadaa wiilkan ku xasili jiree hurdada ku xurmayn jiraa xujiyo fikir igu dilo taladu way iga xuntee maxoolaan soo dhacaa oo xaaraan baan cunaa sidaan yeelaa xigtoy xaggaan aadaa hadeer ahay dhunyaal xumaa xariir baadii ahayd nuurkii xubnahaad ahayd hantiyo xoolaad ahayd xidiga bulshadaad ahayd xadhigga nacabkaad ahayd xulkii ubadkaad ahayd indhaha kuu xiisi jiray xulbaad hooya ii ahayd maxaad u xigsatay tahriib maxaa dhibta kuu xadiday halaal baan kuu dhalay xumida wiilkaygiyo waxaan filayaa inay maasadaasu muujinayso dareenkii uu inankii hore weydiinayay maxamed saalax maanre aad iyo aad buu mahadsan yahay mawduuc runtii aad muhiima buu wax ka qoray insha allah buugna inoo yaalla carwada ciddi u baahan insha allahu tacaala waad mahadsantihiin